horta marka hore aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukunka cadaalad darrada baahsana ee ku dhacay Cabdimaalik Muuse Coldoon. Cabdimaalik waxaa loo haystay 2 eedood. labadaas eedood mid 2 qodob bay ahayd midna 1 qodob bay ahayd. mid waxay ahayd waxa iskuulka abaarsa ku haysta midna waxay ahayd qaranka dhibanaa oo madaxweynaha wax ka sheegtay. haddii aan kala qaado iskuulka abaarso marka laga yimaado dadka suuqa laga abaabulay iskuulka abaarso tootali wuxuu istaagay dhibana kamihii dacwadda xaashida eedda wada arki kartaan meel allaale meel kaga taalo iskuulka abaarsa dhibana ma jirto dawladda iyadoo ku raad gadanaysa oo eedaha kale u haysato Cabdimaalik ku qildiyaysa waxa la raadiyay qaab loogu soo diray iskuulka abaarso waxa loo yeeray oo xaashida eedda lagu soo diray maamulkiisii oo magacyadii institutionisku waxa la yiraahdaa waxay leeyihiin shakhsiyad qaanuuniya legal personality ma ahayn qof la soo qoro waa in la yiraahdo iskuulka abaarsa dhibana tii way dhacwada iskuulku u diiday waxa markaa la sameeyay in magacyadii dadkii iskuulka ka madaxda ahaa la soo qoro magacyada nimankii la soo qoray James baa kamid ahaa nimankaasina totally iyaguna way diideen in maxkamadda yimaadaan hal inana lagu sheegay isaguna inuu xisaabiyaha Soomaaliya ayaa lagu soo daray isagana isna uu diiday dadkii noocaha iskuulka markii la waayay in isaga abaarsahan ku dacwado markii madaxdiisii lagu soo daray xaashida eedda iyaguna ay diideen intii dacwaddu socotay waxa xafiiska xeeraantu abaabulay oo suuqa la kiciyay dad waalidiin oo la leeyahay dadkana dhibanayaala dadkaas xaashida eedda meel laba kaga xusna fadhigii saddexaad baa iyagoo maragyo lagu soo qoran dhibanayaal ahayn xaashidooda eedda maxkamadda la keenay maalinta la keenay sharciyan iyo qaanuuniyan maxkamaddu xaq uma lahayn dad aan ahayn dadkii dhibanayaasha iskuulka isaga hedinu dacwoodo amba maamul ahaan ku dacwoodo dad suuqa laga ururiyay in la yiraahdo dhibanayaal baatiin ceeb bay sharciyan tahay halka markay marayso dadka laftarkooda markaan su'aalihii weydiinay waxay noqotay adoo hebelo ilmahaaga miyaa wax lagu sameeyay waa maya iskuulkan si guud ugu hadlay iskuulka uma hadli kartay iskuulku maamul buu leeyahay dariiq loo maree miyaad u hadlaysaa waxay ka dhigan tahay qof shicib oo yiraahdo waxa madaxtooyada ayaan ka hadlayaan ana madaxtooyada metelaya waxaana fayeenkii hayn madaxweyne hayn agaasimi madaxtooyada hayna suuqa iska joogo yiraahda ana u hadlay madaxtooyadii oo kale ka dhigan tahay halka marka ay marayso waa la dhageystay arintaas waxaanu cadeynaa Cabdimaalik Muuse Coldoon waxaan ahayn ilanka saxafiga koobar baa dalka imi waxaan ahayn oo uu sheegay iyo su'aal uu geliyay ardayda qaar kamid oo uu ku soo dul qoray maxay u jeedaan carabka waxaan ahayn inaanu Cabdimaalik Muuse Coldoon marka taa laga yimaado dacwadaas horta dhinaca abaarso dhibana la'aan weeye horana ay u hayd in makana ay u tahay iskuul dacwaniya ma jiro iskuul maamulkiisu yimi ma jiro taas waa inta waxa ay noqotay muxuuha eedda labaad oo ah taliska Cabdimaalik wuxuu sheegay oo hadaladiis kamid ahaa taliskana wuxuu hayaa tubti talisidii hoogay arintaas sharciyan dastuurka qof kasta oo muwaadin oo ogol inuu ra'yigiisa cabiro haddii ay noqoto lama hadli karo macnaheedu waxa weey dastuurkii wala laalay waxaanu ka qareen ahaan leenahay war xurriyadda aasaasiga ee qofka muwaadinka xurriyadda hadalka ugu muhiimsan dastuurku intaas oo jeer oo aanu ka hadal waxyaabaha kale ilaa xeerarka 153 xeerka dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu oranayaa xeerarkii dawladii siyaad barre waxa laga dhaqmayaa wixii aan ka hor iman xuquuqaha aasaasiga oo ugu horeyso xurriyadda hadalka xilliga dastuurka la dejinayay waxa la sii garanayay inuu iman karo madaxweyne dadka ku qabsan kara xurriyadka noocaas aasaasiga taasi iyadoo laga duulayo ayaa dastuurka la adkeeyo tiraba 5 meelood wax ka badan ayaa xurriyadda qowlku kaga soo aray dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland dadka oo la cabriyana wixii dawladii hore ay ku dumeen aad baanu taa uga xunnahay haddii aan iskuulka abaarso ku noqdo waxa culayska keenay iskuulka abaarso in xukunka amba aan u arkaynaa in culayska keenay waxay tahay xafiiska xeeraalinta iyo cid kasta oo daneynayso arrimo siyaasadeed kale intay dacwaddu socotay waxa abaabushay dad waalidiina oo anaga oo qareenaa xataa maxkamadda horteeda lagu qabsanayay tii waa lagu kalsoonaan waayay waad arkaysaan xalay toole media dacwadii maanta kale lagu dhawaaqayo si loo sii hordego ayaa haddana intii in leeginta la soo ururiyay la yiri media ka hadla taas waxa leenahay barasharka garsoorka laga daayo inta dacwaddu socotay waxaad arkaysaan oo dadka maragyada cadeynayeen halka abaabulka u horeysay ka email la isku keenay in ahayd madaxtooyada waxaanu leenahay madaxtooyada ugu baaqaynaa dastuurka qof kasta oo muwaadin xorriyatul qowl buu siiyay
waxaanu leenahay laga daayo madax bannaanida garsoorka xukuumaddu ha ka dayso faragelinta ay ku hayso ugu horreyn madax bannaanida garsoorka qof kasta oo muwaadinana dastuurka u ballan qaaday oo u damaanad qaaday xorriyatul qowlkee maanta maamulka gacanta ku haya jamhuuriyadda Soomaaliya amba xukuumadda Soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso ummadda cadaadiska qofkii koowaad maaha Cabdimaalik bigeeya loogu xidhay waxaa jira Cabdiraxmaan Abees oo asna inta xidhnaa waxaa jira maanta Cabdimaalik Muuse Coldoon waad arkaysaan sumcad darrtii ugu weyneed weeye markaad aragto joornaalada dunida amba hay'adaha xuquuqul insaanku waxay qorayaan inta maanta xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi talada haysay dadkii ugu badnaa baa la xidhay arrintaas sumcadda Soomaaliland bay hoos u dhigaysaa meeqaamka Soomaaliland bay hoos u dhigaysaa inteeda qof kasta xuquuqul insaan ka shaqeeya maalin kasta intaasoo message ayaa u soo dhacaya oo la weydiinaya arrimaha xuquuqul insaanka Soomaaliland oo aad arkayso sumcaddii Soomaaliland halka awal hore ka ahayd goob lagu xasuusto dimuqraadiyadda in maanta dunidu waxa kaliya prefer garanaysa ay ku soo weydiinaysaa inay tahay dad xidhan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso dadka caburinta inay dadka iyo xuquuqaha dastuurku siiyay ay dadka u damaanad qaado Cabdimaalik Muuse Coldoon oo maanta uu xukunkii ku dhawaaqay garsoore lagu xukumay 3 sano iyo badh in dacwadda aanu muxuu ahaa ka rafcaan qaadano horta waa qodobka labaad waxaa jira muxuu ahaa mas'alooyin fara badan oo madmadow leh oo ku jiray muxuu ahaa habkii uu xukunka u soo saaray garsooruhu taasoo muxuu ahaa maxkamadda rafcaanka iyo meelsha kale ay khusayso aan hordhigi doono waxaa jirta in iyadoo arrimahan Muuse Cabdimaalik lagu haysto lamida lagu haystay muxuu ahaa abwaankii muxuu ahaa in Abees in garsooruhu ilaa xorriyadiisii hadalka ee dastuuriga ahayd ayuu isticmaalayay marka tan mid la mid un bay ahayd marka waxaad aragtaan in dhibaatada ugu weyn ee jirta ay tahay kiisaska isku midka ah oo hab kala duwan looga gurnaqayo kuna looga soo saarayo taasi marka waxa weeye wax aan ku habboonayn muxuu ahaa nidaamka muxuu ahaa garsoor cadaalad ku dhisan iyo hufnaanta muxuu ahaa xuquuqaha aasaasiga ah iyo dhaqangelinta dastuurka waa arinta aad baan uga xunnahay aad iyo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin waan idinka mahad celinaynaa waqtigiina iyo maaragtay garab istaaga u muujiseen ninkaas xufiga ee walaalkiina horta marka hore aad baan uga xunnahay maadaama aanay qaranadii difaaca Cabdimaalik xukunka maanta ay maxkamadda ku riday anigu laba dhinac baan ka eegayaa inta kale qaran Jamaal baa ku dari doona marka koowaad waxaan aad iyo aad horta arrintan waxay dareereen filanay in xukun sidan oo kala dhacayo waxay dareereen filanay marka hal dhinac laga eego oo ah qaabka Cabdimaalik loo xidhay waayo qof xarigiisu xaaraan ah oo sharci darro lagu soo xidhay qaabka cadeymaha maxkamadda lagu helay sharci darro ah in lagu hor keenay xilligii sharcigu dhigayay xilli ka dambeeyay la hor keenay taasna sharci darro ahayd waxa lagu haystay anay ahayd aragtidiisa iyo waxaan dambi ahayn sharci darro ahayd waan iska arkay mar walba natiijada ka soo baxaysa inay tahay wax sharci darro oo hore Soomaalidu tiri hal xaaraan aniga xalaal ma dhasho taas waa arinta labaad ee muhiimka ah in dadku fahmaan waxa weeye Cabdimaalik Coldoon waxyaabo lagu xukumay waxa kamid ah inuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku tilmaamay taliska Muuse Biixi waxa walaaci sanad gudihii in 3 ilaa 4 qof loo xukumo magaca madaxweynaha si kale isticmaasheen Maxamed Kayse Bigeeye ayaa ugu horeeyay oo 2018 June May lagu xukumay waxa tir madaxweynuhu waa loka annaga iyo Jamaal baa loo yahay waxa ku xigay wargeyskii Foore oo anagu qareen u ahay oo lagu haystay madaxweynaha waxa tirada Biixi maanta Cabdimaalik baa ku xigay oo leeyahay madaxweynaha waxa ku tilmaantay taliska Muuse taasina waa arrin kale warwarkeega leh iyo walaaceega taasina ay sababayso in madaxweynaha waxa loo isticmaalay in lagu iraahdo ay tahay mid la jaangoynayo ay jaangoynayso xukuumadda loodhanay madaxweynaha qaabkan anagu jecelnay ugu yeedha laakiin qaabka ka doon hadda ugu yeedhan xabsigeed ku galaysa ayuu dalkuna dimuqraadi yahay isla markaana sharci darro tahay arrinta kale cajiibka waxay tahay dacwadaan dhibana lahayn oo cid soo askatay Cabdimaalik aan jirin si mid madow in loogu xukumo aad baan uga xumahay horta garsooraha xukunka soo saaray waanu dareemaynay culays fara badan baa saarnaa waxaan arkaynay inaanay madax banaana jirin iyo go'aan qaadasho isaga go'aankani uu yahay mid ka yimid rabitaankiisa inuu ku xukumo Coldoon muuqaalkiisa garsooraha harkiisa psychological inuu ahaa nin waxaanu hayo aan raalli ka ahayn ama waxaanu ummadda u sheegay marka mar walba uu ka xunnahay xukunka Cabdimaalik ku dhacay وسيدنا maalintii sheegayna ma aha quraan Cabdimaalik maanta xiran yahay ama xukuman yahay laakiin dastuurkii Soomaaliland iyo shuruucii oo dhan baa xiran oo xukuman waxaan soo jeedinay in garsoorka madax banaanidiisa xukuumaddu faraha uga qaado oo garsoorka madax banaanidiisa loo daayo
ويساو محمود شيقي قرصوران إسلا الشلي مركو كل واقع حكم عبد الرحمن أبي سحوري عبد الرحمن أبي سحوري دبقي شرعي أو دستور كاو قال إنه رتيس عبره عبدون نوح يحوري ما أنت وحاد كشوا دمبي مركا وسيدو قرانكو يدي شيقي والله بدعضو وسيد لبضة شيرس لبقى أبو كردوان لوجو استعماله دستورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداد wax ka warqabtaan maxkamadda maanta waxa xukun 3 sano iyo 6 bilood ah lagu xukumay wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon ururka suxufiyiinta Soomaaliland Soldier run ahaantii arrinkaas iyo xukunka ku dhacay aad ayaan uga xunnahay walidalik horay saad uga warqabtaanba maraaxilkii kala duwanaa waa Cabdimaalik intii ay maxkamaddu socotay uu soo maray looyaradii iyo qareenadii u doodayay waxay ka socdeen dalka Soldier iyadoo mas'uuliyadda Soldier loo aasaasay ay tahay inay ilaaliso suxufi kasta oo ka howlgala Soomaaliland waajibkeygana ay tahay sidaas daraadeed waxa aanu mar walba goobjoog uga ahayn oo aanu ku dhiiranayn oo aanu barbar taagnayn wariye Cabdimaalik Muuse Coldoon xukunka maanta ku dhacayna waxa aanu cadeynaynaa inaanu aad uga xunnahay ka harimayno ka daalimayno ka joogsan mayno wadiiqo kasta iyo sifo kasta oo Cabdimaalik Muuse Coldoon uu xorriyadiisa dib ugu helayo Cabdimaalik waa wariye ka tirsan wariyaasha Soomaaliland Soldier way u doodi doontaa haddii Cabdimaalik tahay haddii ay tahay suxufiyiin kasta oo Soomaaliland ka howlgala waajibna saaran weeyaan waxaan codsanaynaa in loo dhibir samaado waxaan codsanaynaa in la ilaaliyo waxaan codsanaynaa in mar kastaba xaqooda iyo xuquuqdooda la siiyo Cabdimaalik iyo qeyrkiis waad ka warqabtaan warbaahintu dhibaatooyin iyo maraaxilaad kala duwan oo adag ayay Soomaaliland dhexdeeda kala kulmaan xorriyatul qowlka dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa u bineeyay xaqna u siiyay waxaan leenahay anagu haddaanu sooljannahay waa ku dhiiranaynaa mar walbaba in aanu xaqa ku ilaalino wariyaha waa dareensannahay inuu wariyuhu gaf la gadi karo waa dareensannahay inay wax baalmari karaan waa dareensannahay in laga taban karo waxaansan leenahay tabasho kastoo timaada iyo tigaad kastoo timaada waa in lagu hagaa oo lagu ilaaliyaa wadiiqada saxda ah wax kale iskuma hayno xukuumadda iyo qeyrkeed iyo cid kastoo sharciga ilaalinaysa waxaan isku haynaa waa sharci sharciguna wuxuu dhigayaa fa'aati kulli dii xaqin xaqah war suxufigana xaq hala siiyo suxufigana cid kasta oo uu mas'uul ka yahay xaqiisa siiyo waxa ku soo koobaya hadalkayga Cabdimaalik waa wariye naga tirsan waanu ka dhiidiyeynaa wada kasta oo wanaagsan oo maanta xorriyadiisa uu ku helayana waa u mareynaa haddii aanu sooljannahay waxaananu leenahay Cabdimaalik waa kuu maqannahay waa kuu joognaa garabkaaga